السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا channelka MMS for Somali dadka daawatan sheekooyin waaqici waliba mawaadiic cajiiba hadaa jeceshay fiidiyoyada noocan oo kale ah iloobina subscribe saarta channelka gambalelkana furato si ay kugu yimaadaan fiidiyoyada markaan soo dhigno una noqoto qofka ugu horeeya daawada maanta waxaynu ka hadlanaa mid kamid ah mowduucyada ugu khatarta badan kuna baqdita badan ee aan qofka bani aadamka ahi u dulqaadan karin waxaynu ka hadlanaa internetka mugdiga waxa laga yaabaa inaad su'aalo badan isweydiinaysid oo ah internetka mugdiga ahi muxuu yahay maxaa ka dhex dhaca khatartiisu intee leeg tahay inagu ma geli karnaa oo ma isticmaali karnaa su'aalahaas su'aalo kaleba waxaan kaga jawaabaynaa fiidiyoga maanta laakiin intaynaan bilaabin fiidiyoga maanta waxaan rajaynayaa la wadaagtid fiidiyogan asxaabtaada habka ugu fududeed la wadaagi kartidna waa adigoo sidan isticmaala internetka guud ahaan waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood oo kala ah qaybta sare oo ah qaybta aynu isticmaalno ee maalin walba galna sida Google-ka iyo waxyaabaha la midka ah iyo qaybta dhexe oo loo yaqaan internetka qotada dheer leh kuma geli karna qaybtan browserada aynu naqaan Chrome iyo waliba Google Firefox Mozilla iyo waxaas laakiin waxaa jira qayb ka sii dhex jirta qaybtaasi qotada dheer leh oo loo yaqaan internetka mugdiga waa qaybta ay ka dhex dhacaan wax kasta oo xun caalamka sheekadu waxay bilaamatay 2004 kadib markii wakaaladda amniga Mareykanku ay bilowday in ay samayso browser loogu magac daray Tor hadafka loo sameeyay browserkan wuxuu ahaa in la sameeyo internet aan la garanayn aqoonsigiisa haddaba shakhsiga ka shaqeynay browserkan oo la oran jiray Paul Sylvester ayaa waxa kamid ah hadaladii uu sheegay saxaafadda Telegraph markii aanu bilaabanay browserka maanu fadhiisano wax badan kamaanu fikiraaray ma gaara sida amniga iyo qarinta aqoonsiga laakiin sababta baaritaanka waxa uu ahaa inaan u ogolaano shaqaalaha dawladda Mareykanka inay galaan website-yada waaweyn si ay u soo urursadaan xogaha ay u baahan yihiin iyadoo aan la ogaanin waqti xaadirkan aynu taaganahay Tor waxa lagu tiriyaa albaabka laga gala caalamkaasi kale haddaba xogaha qaar ayaa sheegaya in 2014 website-yada ku jira internetka ay dhaafiyeen 1 bilyan bal maxaad u malayn 2019 yani farqiga 5 sano waxa ka sii yaabinaya ayaa ah inaynu kaliya ka isticmaalno website-yadaas faraha badan kaliya 30% ama 40% yani 500 oo milyan oo website aynan arag maqal wax uu yahayna aynan ogeyn haddaan ku idhaahdo milyaniska website aynan isticmaalin iyo kuwa liiyo aan isticmaalnay Yahoo-ga Instagram-ka YouTube-ka waxaasoo dhan internetka boqolley ahaan marka loo qaybiyo waxay ka yihiin 5% ama 10%. 90% kale waa website aanad garanayn weligaan aanad noloshaada maqlin kumana gaari kartid mobilkaaga kaliya adoo isticmaalaya laptopkaaga iyo habka caadiga ah u galno website-dada haddaba internetka qotada dheer ama deep web waxa uu ka kooban yahay qawaacid xarfa soo gaabineed kuwaas oo ku sii gelinaya xogad dawladeed kuwa caafimaad iyo kuwa amniba kuwaas oo aanay dhaqaajin karin injiinada raadinta sida Google-ka Firefox iyo Chrome haddaba haddaad doonto inaad sii geshid internetka qotada dheer waxaad u baahan doontaa ogolaanshahaas aad ku geli kartid internetkaasi si kastaba ahaatee haddaynu si qoto dheer u sii socono si qoto dheeraano internetka qotada dheer ama deep web waxaanu geli doonaa internetka mugdiga ama waxa loo yaqaano the dark web qaybtan internetka mugdiga gabi ahaanba kuma geli kartid kadis waxaad ku geli kartaa adigoo u kasta oo raba inaad geshid qaybtaasi madow ee internetka xaqiiqdii waxa laga yaabaa inaad qaarkiin weydiinasaan haddaba waaye saaxiib saan ku geli karnaa internetka mugdiga dhimma laha gelitaanka internetka mugdiga waxaad u baahantahay waxyaabo yaryar iyo waliba browserka aan idin soo sheegay Tor laakiin waxa laga yaabaa inuu sixirku ku noqdo saaxirka yani waxaan bartan uga jeedaa adigoo doonay inaad geshid internetka mugdiga inay ka soo raacaan waxyaabo badan oo aad u baqdin badan waayo waxaad geli doontaa meesha ay hackersku u yaqaanaan jannadooda waxaad dhex geli doontaa badda hackerska waxa laga yaabaa inaad weydiinaysid maxaa ka dhexdhaca internetka mugdiga waxaanoo sheekooyin abuuray gaar ahaan haday tahay markii kuugu horeysay maqlasay internetka mugdiga kaliya waxaan doonayaa saaxiib inaad magacawdid wax kaliya ka mamnuuca nolosha qawaaniinta dawladaha waxaad ka helaysaa internetka mugdiga iyadoo lagu iibinayo oo caadiya ma maqashay carruur la afduubanayo sidoo kale ma maqashay dad la ciqaabayo dad la kufsanayo waxyaabahaas oo dhan waxay ka dhex dhacaan internetka mugdiga waxa la soo gelinayaa live date waxa la daawanayaa qof dhan oo la ciqaabayo hilibkiisa la googeynayo
waxaa jira sheekooyin baqdin badan oo ka dhex dhaca internetka mugdigana waxaad ku baran doontaa inta uu leeg tahay baqdintiisa iyo khatartiisu sheekooyinka aan soo wadnay insha allahu tacaala. maanta waxaan idin barayay waxa uu yahay internetka mugdigu, saad u barataan internet mugdiga waxa ka dhex dhaca. waxaan idin tusayaa fiideo laga soo dhex qaaday internetka mugdiga. waa nin la cunsiinayo hilibka gabadhiisii oo la soo gogooyay, isagana waa lagu khasbayaa. bal daawada fiideogan.